Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka hadli doonaa harada Victoria iyo harada Albert. Waxaan ugu horeynaynaa harada Victoria. Waxa ay ku taallaa bariga Afrika. Waxaa helay John Speke oo u dhashay dalka Ingiriiska sanadkii markuu ahaa 1858, wuxuuna ugu magac daray boqoradii waaga xukumaysay Ingiriiska ee la oran jiray boqoradda Victoria. Harada Victoria waxa ay ku fadhidaa qiyaastii dhul la-eg 68,800 kilomitir square. Waxaa wadaaga dalalka kala ah Kenya oo nasiib u yeelatay 6% ama 4,100 kilomitir square, dalka Uganda oo heshay 45% ama 3,000 kilomitir square, iyo Tanzania oo heshay 49% ama 33,700 kilomitir square. Harada waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan bariga Afrika. Waxa ay udub dhaxaad u tahay horumarka iyo isdhexgalka gobolka. Waa harada qaaradda Afrika ugu weyn, waana harada labaad ee biyaha macaan ee adduunka ugu weyn. Harada Albert waxa ay ku taallaa bartamaha qaaradda Afrika, xuduudda u dhaxaysa dalalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Harada waxaa la dhisay sanadkii markuu ahaa 1868. Harada waxay ku fadhidaa qiyaastii dhul dhan 5,600 kilomitir square ama 106 kilomitir oo dhererka ah iyo 30 kilomitir oo balac ah, taasoo leh gun qoto dheer oo lagu qiyaasay 51 mitir. Heerkulka sanadkii waa 26 digrii centigrade. Celceliska roobkana waa 34 ilaa 40 heesh.